dal kasta oo dunida ah iyo xog ku saabsan xog muhiim ah oo wadan kasta oo dunida ah. Waxaan ku bilaabayaa dalka Afghanistan oo ah wadanka ugu horeeya marka la raaco alifbeetada. Afghanistan waa mid kamid ah wadamada ugu yar ee dunida ee waqtigeedu ka leexdo dhulbaraha 30 daqiiqo dhanka midig ama GMT+4 halka Shiinaha uu kamid yahay dalalka ugu badan ee leh time zone oo kaliya inkastoo uu yahay dal aad u ballaaran. Shiinaha waxa uu ku yaalaa +8 ama GMT+8 dhanka midig ayuuna ka jiraa cabirka dhul. Sidaa darteed marka aad ka talaabto xadka Afghanistan iyo China oo dhererkiisu yahay 47 mayl waxaad ku boodaysaa 3.5 saacadood oo waqti ah. taasina waa farqiga ugu weyn ee hal mar laga boodo waqtiga dunida. Shiinaha oo leh qorshayaal geesinimo leh waxa uu doonayaa inuu dhiso tareen xawaare sare leh oo ka bilaabanaya magaalada caasimadda ee Beijing kana gudba Bering Strait kuna jaga dalka Mareykanka. Dhinaca waqooyi iyo galbeed ee dalka Mareykanka waxaa ku taala Point Roberts oo ah dhul ka tirsan Mareykanka laakiin dhul intiisa kale ka go'an oo Canada ka xigto dhan walba. maadaama uusan lahayn dugsi sare ardaydu maalin kasta waa inay Canada u gudbaan kadibna dib ugu soo laabtaan Mareykanka si ay iskuulka u tagaan. Canada waa dalka labaad ee ugu weyn dunida waxa uu leeyahay harooyin ka badan inta dunida inteeda kale wada leedahay. Waa sida u weyn oo baaxad leh sidaa darteed barta uu bari karo waxa ay ka dhowdahay Croatia marka loo eego magaalada Vancouver. mid ka mid ah jasiiradaha badan ee Croatia waa goobtii uu ku dhashay farshaxanka Marinos oo aasaasay San Marino. jasiiradda dhacda qaaradda Yurub wadanka shanaad ee ugu yar dunida. mid ka mid ah saddexda wadan ee gabi ahaanba ku hareeraysan dal kale. mid kale waa Vatican jasiiradan oo ku taala dalka Talyaaniga wadanka ugu yar ee dunida iyo dalka Lesotho oo ku yaala qaaradda Afrika oo leh mid ka mid ah 7 goobood ee uu ka da'o barafka qaaradda Afrika. Lesotho waxa ku hareeraysan dalka South Africa oo ah wadanka kaliya ee dunida 3 caasimadood leh. Cape Town xarunta baarlamaanka ee dalka South Africa, magaalada Pretoria oo uu fariisto madaxweynaha dalka, Bloemfontein oo ah caasimadda garsoorka. dalka South Africa sidoo kale waxa uu ku dhow yahay inuu gabi ahaanba ku wareegsato wadan kale Swaziland ama Eswatini ul ahaan halkaas oo wadooyinka aad u liitaan ilaa ay qaar kamid ah wasiirada gaadiid ee soo maray u dhinteen shilal baabuur. inkastoo ay inta badan ku wareegsan tahay South Africa, xadka bari ee Swaziland ama dalka Eswatini waxa uu la wadaagaa Mozambique oo ay leeyihiin xuduud kooban. kaalinta labaadna waxa ku jira dalka Kyrgyzstan oo leh 6 goobood dhul oo ku dhex jira enclaves. waxaana ugu yar mid ka tirsan dalka Uzbekistan oo balaciisu yahay 2 mayl oo kaliya. gudaha Uzbekistan wabiyada dalka midkoodna bad uma qulqulo, dhammaantood waxa ay galaan meelaha biyo ku urursiga ah ee aan lahayn wax bad ah halkaas oo biyuhu ku umi baxaan. Uzbekistan waa mid ka mid ah labada dal ee dunida ee double landlocked ama dalka laba mar xiran, taasoo macnaheedu yahay inuu ku xeeran yahay dal iyaguna aan lahayn bad. waxay ku sii dhex jiraan dal kale oo aan bad lahayn. dalalka asaageeda ee ku dhamaada xarafka tan sida Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Afghanistan iyo Turkmenistan. wadan kale oo double landlocked ah waa dalka Liechtenstein ee dhaca qaaradda Yurub, dal yar oo taariikh ahaan dhexdhexaad ahaa muddo. dagaalkii ugu dambeeyay oo dhacay 1886 midkoodna 80 askari dhaawac ama dhimasho ma gaarin waxa ayna ku laabteen dalka 81 qof sababtoo ah waxay la soo saaxiibeen nin Talyaani ah. Italy waxa ku yaala goobta barafka lagu ciyaaro ee Bruwell Carvinia halkaas oo aad ka dusi karto si aad ugu gudubto dalka Switzerland. Switzerland aad bay uga taxadartaa dagaal ilaa heer ay 3,000 oo meelood oo laga soo galo dalka ku xireen qarax diyaar u ah in la fasaxo haddii lagu soo duulo. Switzerland sidoo kale waxa ku yaala dhamaadka mid ka mid ah duulimaadyada caalamiga ah ee jadwalka joogtada ah ee ugu gaaban dunida, waxayna qaadataa 6 daqiiqo oo kaliya masaafo ahaan 10 mayl. waxayna u gudubtaa Jarmalka halkaas oo xitaa aysan sharci darro ahayn in maxbuusku isku dayo inuu xabsiga ka baxsado. dhab ahaantii waxay yiraahdaan waa dabeecadda bini'aadamka. dalka Jarmalka waxa ku taala bar ka mid ah baraha jasiiradaha yaryar ee caalamiga ah ee loo kala leeyahay dhinaca Poland iyo jasiiradan. inkastoo 200 feet oo kaliya uga jiro dhulka Poland, ma laha wax buundo ah isaga oo xira wadanka intiisa kale sida Point Roberts. dadka halkaas degan waa inay maraan xuduud caalami ah si ay dalkooda u gaaraan. dalka Poland sidoo kale waa muddo kooban oo 8 sano ah qarnigii 16aad ka mid ahayd boqortooyadii Sweden iyaduna waxa ay leedahay jasiirad caalami ahaan loo kala leeyahay, tanina waa 7 acres oo kaliya baaxadeeda. xadka halkaas u muuqda sidan waa sababtoo ah Finland si kama ah ay uga dhistay lighthouse iftiin mareen dhulka Sweden. sidaa darteed waxa ay dib u habeeyaan xadka si arintu u degto. dalka Finland waxa uu leeyahay 187,888 harabiyood oo la tiriyay barta ugu waqooyi ee dalkaana waxa ku dhowdahay Greenland marka loo eego Poland sababtoo ah qaabka wareegsan ee meeraha dhulka. jasiiradda Greenland dhab ahaantii waa maamul hoosaad hoostaga dalka Denmark.
mana aha dal madax bannaan, sidaa darteed lama sheegi karo sida dalalka kale. Denmark gudaheeda waxaad ka jirta ugu badnaan 30 mayl oo kaliya meel u jirta badda, mar walba bad ayaa kuu dhow. bartamaha qaaradda Australia waxa uu leeyahay dhul aad u maran, dad iyo dhir toona kuma badna, waxaase ku yaala 297 mayl oo ku toosan si sax ah oo ka mid ah wadamada tareenka. Australia waxa ay xoreysay dalka Brunei intii lagu jiray dagaalkii labaad ee adduunka. Brunei waa mid ka mid ah wadamada yar ee dunida ee ka kooban laba qaybood oo isku cabir ah, St Kitts iyo Nevis. iyaduna waxa ay ka kooban tahay laba qaybood, balse taas sababteedu waa inay tahay dal ka kooban laba jasiiradood, waxayna tahay wadanka ugu yar qaaradda Amerika. dalkan waxaad ku heli kartaa dhalashada adigoo gelinaya $400,000 oo maalgashi ah, dhul ama guri sida Bulgaria oo kale. laakiin dalka Bulgaria dadka waxay madaxa kor iyo hoos u ruxaan marka ay leeyihiin maya, halka ay bidix iyo midig u ruxaan madaxa marka ay leeyihiin haa, taasoo cagsi ku ah dadka kale ee dunida. Bulgaria waa mid ka mid ah dalalka yar ee leh safaarad gudaha ee dalka North Korea ama waqooyiga Korea ama dalka waqooyiga Korea. sanadkii 2015 waxay samaysatay time zone cabir waqti u gaar ah, sababo aan caddayn oo kaliya inay ka duwan tahay dunida kale. waqooyiga Korea waxaa dal ahaan kala xiga dalka Norway, halka in badan oo kala bar dadka Norway ay ka hooseeyaan qadka kala qaybiya waqooyiga iyo koonfurta dunida. dhexda Norway iyo waqooyiga Korea waxaa ku yaala dalka Ruushka, dalka ugu weyn dunida. qodobka ugu bari ee Ruushka waxa uu gabi ahaantii u dhow yahay Mexico marka loo eego magaalada Moscow. Mexico mar ayay 3 madaxweyne yeelatay hal saac gudaheed intii uu socday afgambi military, laakiin sidoo kale waxay la mid tahay Alsace-Lorraine ee France oo ahayd dal madax bannaan oo si rasmi ah 12 maalmood oo kaliya ka hor inta aysan qayb ka noqon Jarmalka, kadibna mar kale France dhammaadkii dagaalkii koowaad ee adduunka. dalka France dabcan waxa ay lahayd maamul aad u weyn, waxaana ka mid ahaa dalka Algeria oo maanta dalka ugu weyn qaaradda Afrika. Algeria marka la barbar dhigo dalalka qaar ee dariska la ah, dumarka si wanaagsan ayaa loola dhaqmaa. 70% qareennada iyo sharciyaqaanada dalkan waa haween. dalka Algeria waxaa ku xiga dalka Morocco oo gacanta ku haya qayb ka mid ah Western Sahara ama Saxaraha galbeed, meel aan si rasmi ah ugu jirin wadan gaar ah, iskuna haystaan dalalka Algeria iyo dalka Morocco. taasi waxay sababtaa in mar walba ay muuqato banaanbaxa qariirada xogta. Morocco waxa ay hareer martaa labada dhul ee go'doon ee Spain ee Ceuta iyo Melilla, kuwaasoo si rasmi ah uga qayb gala mid ka mid ah dalka Spain, North Overseas Territories. inkastoo ay ku yaalaan waqooyiga Afrika, Spain mar ayay lahayd boqortooyo aad u weyn. qayb ka mid ahna waxay ahayd Micronesia oo hadda dal madax bannaan, laakiin xiriir gaar ah la leh Mareykanka, taasoo macnaheedu yahay inay dal madax bannaan tahay, balse Mareykanku bixiyo difaaca taageerada dhaqaalaha. dalka Micronesia waxaa ku biiri karaan militariga Mareykanka iyagoo aan lahayn dadka degan Mareykanka xuquuq ay leeyihiin oo kaliya dalalka xiriirka gaarka la leh dalka Mareykanka. lacagta rasmiga ah ee Micronesia waa lacagta dollarka Mareykanka. jasiiradda Palau, dal kale oo u dhow xiriir gaar ahna la leh dalka Mareykanka, waxaana badanaa lagu barbardhigaa Fiji. labaduba waa jasiirado qurux badan inkastoo ay kala fog yihiin 3500 oo mayl. Fiji waxay hoos joogtay Ingiriiska 1970, waana jasiirad qurxoon oo doog iyo biyo nadiif ah ku caana. dhaqaalaha Fiji waxa uu ku tiirsan yahay dalxiiska, kalluumaysiga, beeraha. waxaa lagu yaqaanaa martigelinta diiran, muusiga, dhaqanka meeke ee soo jiidanaya booqdayaasha dunida. UK waxaa ku yaala duulimaadka caalamiga ah ee jadwalka ku jira ee ugu gaaban ee u dhexeeya Western Papua iyo Western jasiiradda Scotland. Western qiimihiisu waa 17 baan, waxaana qaataa 53 ilbiriqsi, masaafo ahaanna waa 1.7 mayl. UK waxay leedahay laba dhul go'doon exclaves, labaduba waa Overseas Territories. Gibraltar oo ka hoos jeeda Ceuta iyo Acorriti de Helia oo ku yaala jasiiradda Cyprus gudaheeda waxaad ka heli kartaa saraakiil xadka ilaaliya oo kala socda 3 dal, dalka UK, Cyprus iyo dalka Turkiga. waqooyiga Cyprus waa dal isticlaamiyay oo kaliya aqoonsan tahay Turkiga, taasoo ka caawisa militariga ilaalinta xadgudubka. Istanbul, dalka Turkiga, waa magaalada kaliya ee dunida u kala fidsan laba qaybood, Yurub iyo Aasiya, inkastoo ay wadamo badan ay labaduba ku yaalaan. dalka Masar, jasiiradda Sinai waxay ku taalaa qaaradda Aasiya, halka intiisa kale uu ku yaalo qaaradda Afrika. xadka koonfureed ee Masar waxaa ka dambeeyay Birtawiil, dhul aan dalna la sheegan sababtoo ah Masar iyo Suudaan ayaa isku raaci waayay xadka dalka dhabta ah ee ku yaala labada dal. Suudaan waxay dhowaan u kala jabeen laba dal, kadibna waxaa la dhisay dalka South Suudaan, taasoo ka dhigaysa dalka ugu yar ee xubinka ah qaramada midoobay. labada dal ee gudaha da'da yar waa Serbia, 2006 la oran jiray Serbia iyo Montenegro, ilaa markii dambe lagu kala baxay. Montenegro sidoo kale magac tuulo ah oo ku taala Costa Rica ay ku nool yihiin qiyaastii 100 ruux. caasimadda Costa Rica, San Jose, waxay ogolaataa mulkiilayaasha gaadiidka inay kaxeeyaan 6 maalmood oo kaliya asbuucii si loo yareeyo saxmadda wasaqda hawada. dijidka ugu dambeeya ee taarikada gawaarida waxaa go'aamiya maalinta laga mamnuucay.
xadka koonfureed ee Costa Rica waxa uu la wadaagaa Panama waxaana lagu yaqaanaa kanaalka Panama si la yaab leh dhanka bari ku yaala ganacsi galbeed halka Pacific galbeedka uu uga yaalo dhinaca bari xadka koonfureed ee dalka Panama waxa ku yaala Colombia laakiin ma jiro hal wado oo ka gudubto 50 mayl oo kayd adag ah taasoo dhigaysa in aan suurtagal ahayn in la kaxeeyo baabuur u dhaxeeya waqooyiga iyo koonfurta America dalka Colombia horey waxay u ahayd dal hoos tagtay Spain laakiin sidoo kale Netherlands dalka Holland ayaa qayb ka ahayd Spain waagii loo yaqaanay Spanish Netherlands waxa ku yaala Nassau mid ka mid ah xuduudaha ugu wareegga badan dunida Belgium-ka waxaa lagu yaqaanaa inay leedahay xarunta UN sida Nairobi Kenya oo loo aqoonsan yahay meel lagu tuunsan tahay inay tahay meesha ugu horeysay ee aadamaha laga soo farcameen Kenya cadka waqooyi waxay la wadaagtaa Soomaaliya oo la helay ATM-kii ugu horeeyay sanadii 2014 Soomaaliya waxay dagaalo kala duwan la gashay Ethiopia 3 jeer qarnigii la soo dhaafay halka Ethiopia Airlines ay ahayd shirkadii labaad ee dunida ee heshay diyaarad 787 inkastoo ay Ethiopia ka mid ahayd dalalka ugu saboolsan 13 ugu hooseeya Ethiopia waa dal dhul go'doon ah oo aan lahayn bad taasoo sababtay caqabado ku saabsan ganacsiga caalamiga ah qarashaadka dhoofinta iyo soo jedinta sare u kacay iyo ku tiirsanaanta dekada dalalka dariska ah sida Djibouti waxay martigelisaa saldhigga kaliya ee Mareykanka ee Afrika halka ilmo Yacquub ay leeyihiin mid ka mid ah kuwa ugu yar Dimona Radar Base inkastoo uu yahay bariga dhexe haddana waxay la qaybsadaan Eurovision horyaalo badan oo Yurub sababtoo ah dhaqan ahaan waxay u dhowdahay Yurub bulshada Falastiiniyiinta ee u ballaaran ee ka baxsan Carabta waxay ku nool yihiin dalka Chile oo ka mid ah dalalka yar ee hay'ad dawladeed ee baarta asayda duula ee aan lahayn arag Chile waa dalka u koonfureeya dhulweynaha adduunka laakiin waxaa leh garoonka diyaaradaha ee ugu koonfureeya taasi waxaa leh dalka Argentina Oceania Malvinas International Airport biyaha quruxda badan ee halkaad ku arkaysaan Iguazu Falls waa xadka u dhaxeeya Argentina iyo Brazil oo ay ku taalo webiga Amazon kaasoo aan lahayn hal buundo oo kaliya midna ma laha waayo inta badan aagaga uu maro dad kama degaan Brazil waxay ka dhowdahay Dakar Senegal caasimada dalka Senegal marka loo eego Porto Alegre oo Brazil gudaheeda ah wax yar oo ka baxsan dalka Senegal waxa ku yaala Cape Verde oo ay janal dhulka saaran waxayna leeyihiin heer nololeed oo wanaagsan GDP fiican dad wax bartay waana heer kulka ugu hooseeya aad laga diiwaan galiyay halkaas oo ahaa 50 Fahrenheit Cape Verde ama jasiiradda Cape Verde ee ku taala qaaradda Afrika waxay ku hadlaan luqadda Boortaqiiska oo afka lixaad ee ugu badan dunida inkastoo wadankooda asalka ah Portugal uu ka yar yahay gobolka Kentucky Portugal waxay lahayd boqortooyo weyn oo qayb ka mid ahayd Indonesia taasoo la jasiirad caalami ahaan kala leedahay oo ay wadaagaan Papua New Guinea sida jasiiradda Hispaniola oo kale waxayna wadaagaan Haiti iyo Dominican Republic Hispaniola waa jasiiradda 22aad ee ugu weyn dalka Madagascar halka ay tahay tan afraad ee ugu weyn isla markaana ah dal jasiiradeedka ugu weyn dunida Madagascar malaayiin sano ka hor waxay ku xirneyd India ka hor intii qaaraduhu kala dhaqaaqeen Sri Lanka waxa ay India ku xirneyd ku dhawaad sanadkii 1480 iyadoo ay jirtay buundo dhulka ah balse hadda way duntay oo badda ay qaaday is arag dambe daawadayaal ku soo biir bogeena Togaalo View